saad noo soo dhaweyseen allah inii soo dhaweeyo bisha koobaad kolley sheekh cumar baa kelmad siin doonaaye sheekh cumar de annagu waan tashkiilinaaye tashkiilkii baan raacina in yar hayga raalli ahaadaan in odaya nagu yidhi wacdigii naayir uu macaan yahay bixitaanka maad ka reebtaan ha buu yidhi marka meeshana sheekh xasan jazaahu llahu khayr wuxuu yidhi halkan waa markas buu yidhi ogow buu iga yidhi waa markasu dacwo weeyaan buu yidhi waa markaskiinnii ku soo dhowaada jazaahu llahu khayr allah barakeeyo ininkana allah ini barakeeyo diin waxaa ilaahay shardi uga dhigay in loo dadaalo bas haddaad caalim rabto inaad noqoto waa inaad cilmiga barataa haddaad mumin noqoto iimaanka waa la bartaa haddaad dooni mutadayin inaad noqoto diinta waa la bartaa islaamnimada waa deeq ilaahay ku siiyey laakiin muslim dhaba inaad noqotaa adi dadaalkaaga ku xidhan tahay islaamnimadu waa shareecadda muslimkuna waa shaksiga islaamnimada ayaa inagu deeqay imika yaa inagu deeqay ilaahay baa inagu deeqay soo ma laakiin muslim quman inaad noqotaa maxay ku xidhan tahay dadaal bay ku xidhan tahay yarxamuka allah dadaal bay ku xidhan tahay saa darteed bay culimmadu leeyihiin adduunyada waa deeq ilaahay bixiyo dadaalna waa lagu helaa dadaalna aanna waa lagu helaa bal ducana waa lagu helaa oo nebi sulaymaan mulkiga adduunyada ma dadaal buu ku helay mise ducuu ku helay bal ii sheega rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab maxaa ku xiga fasakharnaa lahu riixa tajri biamrihi ruqaa'an xaysu asaab markiiba ilaahay waan aqbalay buuhi ducadiisii mulkiga adduunka o dhan baan gacanta ka gelinay maaha lacag wuxuu ilaahay weydiistay maaha dibloom iyo tacliin yar maaha waa mulki weliba isaga dabadii cid dambana aan u qalmayn ayaa ilaahay iyuu yidhi ilaahow isii dembigayga ilaahow dhaaf mulkiga caynkaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yidhi markiiba wuxuu yidhi waan ka aqballo ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyey markaa hadalka shimbiraha la baray quraanjada hadalkeegii buu maqlay dabeelaha loo sakhiray jinka iyo shayaadiinta iyo cafaariidda ayaa gacantiisa ilaahay soo geliyey oo amarkiisay badaha intay ku galaan jawaahirta iyo dhamankay u soo saarayeen aqaladay u dhisayeen wadooyinkay samaynayeen waxali wuxuu u baahdoo dhan nebi sulaymaan jinka iyo shayaadiintu u diraayey waxali waxa shimbire iyo hawada duuloo dhanna korkiisay sidaa u socon jireen waxushira lisulaymaana junuudahu min aljini walinsi waاطayr fahum yuzacuun xata ida atow calى waadi الnml qaalat namlaة ya ayuha الnml اdkhuluu masaakinakum laa yaxطimanakum sulaymaan wajunuuduhu wahum laa yashcuruun fatabasama ضaaxika min qowliha waqaala rabi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wclى waalidaya waan acmala صaalixا tardaah وأdkhilnii biraxmatika fii cibaadika الصaalixiin waa ka ku ducaystay ducadaas mulkigii caalamkao dhan ilaahay intuu soo qaaday ayaa ilaahay nebi sulaymaan gacanta ka geliyey bilaa shuruud wax shuruuda laguma xidhin markaasaa ilaahay yihi haadaa caطaa'una tani waa deeqdayadii famnun aw amsik bigayri xisaab haddaad doonto galladayso oo ciddaad doonto ku galladayso oo sii haddaad doonto hayse baa lagu yidhi waxba lagaa weydiin maayo tan laguguma xisaabin maayoba tan waa adduunyo laakiin qisadii nebi ibraahim calayhi salaam dhegayso waa nebi ibraahim waa khaliilkii ilaahay jala wacala weliba dacwadda imtixaan buu u soo maray markuu weydiistay ilaahay jala wacalaa in loo ziyaadiyo iimaankiisa in macrifada rabbigii ay u korodha markuu weydiistay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbii maxaa ku xigta qaala fakhud arbacata min aلطayr shuruud baa yaa la hordhigay isaga afar shimbirood la kaalay baa lagu yidhi haddaad doonayso iimaanka inaan kuu ziyaadino macrifada rabbiga inay kuu korodha haddaad doonaysid afar shimbirood soo qabo mustaciduun diyaar mawtiinde ya
هل كانوا السعوديات فهمتين سوما فخذ 4 من الطير أفر شبرا سوق بالغيري علم اليقين ولا يهي لكن حرب عين اليقين وأركو علم اليقين ولا يهي أولم تؤمن بالغير ما درمين واحد انتي سانو صونو لينو ميان الرميسنين إن الصو صاري كرنو إن أبوري كرنو مركلة إن نولين كرنو قال بلا مي والرميسن هاي بودي تربي جيو ولكن ليطمئن قلبي وحربا إن قلبي جي إيمانك يا معرفة ذاته أي سيبي يدكتو من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى أركان ربابا شيء الله سمينا إلى أركان ربا وهذا أفر شمبرود لك على بالغويري وشرط قاس وده الدأوين ولي بأفر شمبرود ولي بنسكن نوع هاي بعلماء ولادين وكل نوع ومد والبا ودن قونية ميل قونية لقى سوق بنايو وده الدأوين سوق بشديدو ما يفضل ده مسوود بيرتاح سوق واحد تاعي محل لو شيء قصدا حكمنا قرآن الله هنا فهم سي قرآن وين تدبر كو آخرنا موقتها وحلا إنه شيء يا سليمان والدوية ودن إلهي ويديستينا بلا شروط باللغوسي وهي الدوية قيمة ملأ لكن إبراهيم وح قيمة لونه ويديستي كدقنتها شروط ما كل حد يسقى دين قيمة لا ده هي شيء قيمة هلا وحلا لغو قرتها markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la aad gashatid oday baa inankiisu ku yiri aba inta oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta ku shilin aba ii keen buu kiri ku shilin dhididkaaga raba inaan cune ku yaro ciyaal magaalo waligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii uu ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yiri hooyadii buu ku hooyo ku shilin siiyo maxaad ka dhigayo أنا أباهنا هو يسي ويسي وذاك أبيه بوجي تو نين لعكت صور شقي يسكت دقي بودابو هو تن لعكتي هو وكقاضو ضب هرتي سكب حيب وكون كيش لون كتورة وذاكي مركز ولي بينك يسيب هوستا كير يجو ساسو هيك مركز هذانا طبعا معلومات كدي بوكيدي بل بريت ولا نوان كون كيشلن أبا وان كهربا فريد بابا تاعي أدوية شغال أبا تقانا يكون شلني كان هو يدين بوكير وريجو هو العقل سيا محد كدقي وأمان هو يسيسون هو يموقته هو معان هو كانوا وكقاضوا ضبك يوم هذا نكتورة كينا بل مالين مدة كذبوا هذا نيري بل ما أنت نعابه فريد بابا النقطة هو تقول يكون شلني سيا war lacagta bariyahan adiga gurto horta halkeed geysa way runta ma ku sheega ha aabba igu yiri ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagan marka u geeya kun ka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallahi dab hortiisa ka baxayo uu ku tuuray isaguna markaas ay ku tiri war lacag la gubo anigu ma haye orad magaalada u gal odayga waa midaal yani مثلا حتى تفهموا وشغلت جاي ضد مركا وحركة ما نقل لسه يواركي ورستو مالنتي مسات صوش قيسايو عين كاسو كل شيء لأنه والله شغلت جو وأدوح وحول سوق بني بوسوق قبتي لعقتي وري لعقت المسكو قيمة مركا وكان وذجي أبو هو مركاسو ويقول لي هذا البراعي ويقول أبو لعقت الضبكة كاي لا لدي النبي صلى الله عليه وسلم markaasuu yiri oo maxaa ku jaban buu hadaan ku tuura kuwii horeba sooniga gubayay ma ya abtanati hore way ka duwan tahay tan waa dhidid baa ku baxay buu yiri waxaan u soo qaatay misalkaas shaygan marka uu maal iyo waqti iyo aqli iyo dadaal iyo ragnimo ay ka gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed
adiga lafahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waqtigaaga maalkaaga ardayga waqtigiisa inuu diinta barta ku bixinaya waa jihaad man kharaja fi طalab اlcilmi fahuwa fi sabiili اllahi xataa yarjica maalkaaga waqtigaaga ood waqti yar ka soo goysaa ood ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba miig kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aad uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac laguma leh lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saaro markaad baxayso haddaad 4 bilood baxayso haddaad 2 bilood baxayso haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas-uuliyad baa kaa saarana waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo haddaad aragteen ood maqasheen mid la yidhi reerkiisiibuu kaga dhaqaaqay bilaa biil kaasi waa tartiibtii dacwaddu garab maree dacwadoo dhan maaha sidaas ogaada tartiibtii dacwaddu ayuu yar garab maray dee qolo walba qaar yar mushadidiin noqdo oo iska leeyihiin soo maha oo yar nuura ka u nuuray markaa laakiin manhajku ma qabo in reerka la dayaca ma qabo manhajku waa manhaju nubuwa wuxuu qabaa nebiga nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaa rasuulallah inaan baxaan rabaa jihaadka waa cahdiga nebiga dagaalna waa loo baxayey markaasuu yihi maxaad u baxaysaa ii sheeg wuxuu ihi jannaan doonayaa labadaadii waalid mid ma nool yihiin markaasuu yihi hooyaa ka nool buu yidhi ma iyadoo kaa raalliya baad ka timiday mise iyadoo safarkaaga aan ka raalli ahayn may safarkayga ka raalli maahayn buu yihi soo janno ma doonaysid haa alzim rijlayha uma aljanna buu rasuulku yidhi ku noqo iyadoo lugaheega qabso u duug u khidmee raalli geli halkaabaa jannada ka galaysa adigu yahay laakiin waxaan leenahay waqtigeennaan qaybinaynaa tafaraq licibaadatii baan ku shaqaynaynaa tafaraq licibaadatii amla sadraka ghinan waasudda faqrak wailaa tafcal malaatu yadaka shugla walama sudda faqraka waqtigaan qaybinaynaa waqtigaas reerkii waqtigaa shaqadii waqtigaa tacliintii waqtigaa dacwaddii waqtigaa masaajidkii waqtigaa qaraabadii waqtigaa ubadkii waliba inaku haddaan dadka af soomaaliga ku hadla waqti baa ilaahayna siiyey laakiin waqtigeenna maanta mujtamaceenna afkaa ku hadla intooda badan waqtigeenna wuxuu ku daatay maalaayacni buu ku dhammaaday caamadaan leenahay war masaajidada soo gala culammada ku soo xidhma salaada tukada naftiina tarbiyadeeya kaale ilaahay dartii jamacadda u raaco naftaada soo islaaxi taajirka faqiirka hani oday iyo inan dhammaan ummadoo dhan diinta inaan ka shaqeyno ilaahay baa noo doortay yaa inoo doortay huwa jtabaakum baa ilaahay yidhi huwa jtabaakum ilaahay baa ina doortay muxuu ilaahay noo doortay marka inaad diinta ka shaqaysaa lagu doortay ma aha inaad caabid noqoto keliya laa cibaadadu aday gaar kuu tahay salaadiyo soonka iyo zakadiyo xashku aday gaar kuu yihiin laakiin waxaa ummadda anfacaya waa maxay waa dacwaddiiyo tacliinta ummadda anfacaysa diintana sidaa aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan bedilnay maanta haddaan soomaali naho waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyada u soconno waana ka u dhoofayna waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga libiya ay u dhammaadeen iska daba wareeg
wadannada gaalada bari annagoo joogna ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow dhowr iyo 20 sano aan joogay bur Yurub Denmark man dhowr iyo 20 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyay shaqo yar oo fiican buu yidhi annagii buu daalac noo raacayba ilaa ummadun guri lagu saleeyo bogta markaasaan haddana gobol kale tagnay nin waxaan helay markaa isaguna yidhi dalka Mareykanka waxaan ku noolahay 730 sano bal 10 barina raac oo naftaada soo islaaxi oo bal aakhirada dareenkii aakhiro in yar ka ilaahay alla soo munaajoonay markaas uu 730 sano wadanka joogaa buu yidhi haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buu yidhi waxa la ii sheegay buu yidhi inuu Australia ka qaraxday Australia aanu dhoofayaayo qola nooli ururinaysa culumay ducada igu daray buu yidhi hayo waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hageed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ii soo duceeya kii dalka joogay xagu u socda wuxuu ku ducaysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ii gaarsi kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihinanaku dan baa yidhi dayax gacmeedkii u horreeyay la diray buu yidhi waa kaftan 2 nin baa loogu tegay buu dayaxa dul fadhida Soomaaliya hindigii baa lagu yidhi meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yidhi ganacsi baan ka yar gelinayaa buu yidhi waa dhul cidla Soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan hay buu nabiga ku salli xagee markaa u soconaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay innaku waa diinta weeyaan insha Allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta ilaahay noo qadaro de diinta dadaalkeega insha Allah ina ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin Allah inagu anfaco saad noo soo dhaweeysan Allah inii soo dhaweeyo bisha koobaad kulay Sheekh Umar baa kelmad siin doonaaye Sheekh Umar daanaku waa tashkiilkii baan raacina in yar hayga raali hadaan in odaya nagu yiri wacdigiina yar uu macaan yahay bixitaanka maad ka reebtaan abu marka meeshana Sheekh Xasan jazaahullahu khayr wuxuu yiri halkan waa markas buulo ugu bigeeyay waa markas dacwo weeyaan buulo waa markaskiini ku soo dhawaada jazaahullahu khayr Allah barakeeyo inagana Allah in barakeeyo دوا مر والله ما داي هذا جماعات على السنة وتا جيبوتي وإدارتي بل إن شاء الله إنكم اجتماع جيبوتي دعية بشكوبة تومن كيغا اللي كل واسك صعناي وصعد كواسك بدن سكنا غناية بل يا نيوني ولا إن شاء الله ونيجي سنة هنا كسو قيب قالوا ونسود دعينا نكونا ما شاء الله قعنتوا تاج أنا قعنت مقصنا إياه سكت تاج قعنت والله نيو ذا دعينا الله ينقافع صلى الله عليه وسلم إنير كلمة الخطأ لا بس إنير هالكلمة شاء